banaanbaxa looga soo horjeeday sarifka lacagta dollarka iyo maciishada oo iyada dambe ahaa mid aan fadhiyin ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Garowe waxaana isku soo baxay shacab badan mudaharaadayaasha ayaa saaka ilaa duhurnimadii socod ku marayay wadooyinka magaalada iyagoo tagay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka Puntland suuqyada waaweyn ee Garowe ayaa gabi ahaan saaka lagu waabreystay iyagoo xiran waxaana arintaasi saameyn ay ku yeelatay shacabka cashuurtii dakhliga ugu socdaa dadka waa laga qaadaa waxba kuma baaqdaan maxaan ku yiraahdaa mushahar lama qaato dabada halka inaga timaado boqoyba lacag inaga timaado cusub oo baro aan teenahay away marka dadkii uu waliba kaashki dabada inaga soo galay shay inaga soo galay dabada ku haya dollarka marka wuxuu noqday Australian qofna wuxuu ku leeyahay soddon oo kugu sarifay la kaalay halkii dollar mas'uuliyiin ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa soo gaaray barxadda oo dadka dibadbaxaya ay isugu yimaadeen iyagoona halkaas kula hadlay dadkii banaanbaxayay arinta koowaad oo ayna ka cabanaysaan sariflayaashii Soomaaliya arinta labaad oo ah inaad dawladda gaartaan fariintiina Soomaaliya ma inta waxaan ahayn baa idinku dhex jira وكذا هذا القعاري أنت هديت كل حشر واسفهمنا برك دولة بوتلان وحي قوان كوغارتي دولار كإنان أفر يلا باتنا دافن كريم وهي مغلسة سومان عندي دافسة وصرف له دولة بوتلان وحي واقوستها الدنبيلة قرن taliyii hore ee qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir ayaa la hadlay dadka banaanbaxa dhigay maciishada iyo sicir bararka inta soo socday waxay sheegeen hooyooyinka docdayna socday ee sariflayaasha ka cabanayaan oo maciishada ay ka cabanayaan ganacsatada ay ka cabanayaan waxa soo dhanna waxa fiican in dawladdu ay rayd u samayso rayd ama baadka karin taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdirashiid Xinjiraloq ayaan wax ka weydiinay cabashada dibadbaxayaasha ayaa wuxuu sheegay shakhsiyaad gaar ah inay abaabulayaan dibadbaxa xilli dawladdu wax ka qabatay sicir bararka bismillahir rahmaanir rahiim arintan waa aragtaan waa dadku waxa laga hadlayo waa sicir bararkuna waxa weeye waa wax jira dawladdu go'aan bay ka soo saartay qiimay u samayso dollarka waxaan dad gaar ah waxay ka shaqeynayaan weeye oo dana gaar leh ama si kale shaqo u raadinayeen ama shaqo ka tagayo ciil qaba waxa dad cusub oo shacabka ku jira oo problem ma ay jiraan waanka dawladdu lahaydna way qaadatay waad ogtiin qiimaha loo gooyo lagu soo saaray cidii inta wax ka baxsan shirta wala la xisaabtamaya arinta banaanbaxa looga cabanayo sicirka maciishada iyo qiimaha dollarka ayaan ahayn mid cusub dhawaan ayaa kan mid la mid ah Garowe oo ka dhacay cabashada dadka ayaa dawladdu wax ka qabatay iyadoo sarifka u jaangoysay 24 ilaa 25 halkii dollar in lagu sarifo balse sababta mudaharaadka keentay ayaa ah marka lacagta shilinka Soomaaliga loo bedelayo dollar aysan ahayn mid fadhida waana tan dhalisay dibadbaxan